siixi doona 6 sano heshiisa oo 9 milyan sanadkii uu ku qaadan doono waxaana ciyaaryahankan la leeyahay aad iyo aad ayaa loo quudareynaya inay kooxda ku dhawaaqi doonto saacadaha soo aadan inkastoo kooxo fara badan oo qaarada Yurub ay daneynayeen ciyaaryahankan 28 jirka ah ayaa waxa uu Aaron Ramsey oo 40 milyan heshiiska ayuu ku kici doonaa Juventus 28 jirkan ayaa xur ah waxaana uu la hadli karaa kooxdiisa cusub maadaama 6 bilood uu ka harsan yahay sida sharcigan wuxuu yahay ciyaaryahanka 6 bilood heshiiska uga harsan yahay koox walbaaba uu la hadli karaa oo personal agreement heshiiska la yiraahdo uu la gaari karaa Nick Redwilish ayaa siixi doona 4 sano heshiisa 140,000 ayuu toddobaadkii ku qaadan doona oo sanadkii u dhiganta 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah kooxda reer France iyo Paris iyo kooxda reer Germany iyo Bayern Munich ayaa isku haysta ciyaaryahankan kooxda waqooyiga London ku bixiyay 11 sanadood Ramsey ayaa Arsenal kaga soo biiray Cardiff 2008 lacag dhan 5 milyan oo qura 3 FA Cup ayuu la qaaday sidoo kale kulku guusha 2014 iyo 2017 finaaladii Hull iyo Chelsea isaga ayaa dhaliyay waxaana jirtay in marka la fiiriyo kooxaha isbedelo fara badan ay sameeyeen laakiin haatan ay rajeynayaan in ciyaaryahankan ugu dambeyn kooxda uu ka dhaqaaqi doono maamulka sare ee kooxda Arsenal ayaa luminaya mid kamid ah hibooyinka qadka dhexe ee kooxda maadaama markii horeba kooxda la daala dhaceysay guul darooyin iyo sidoo kale dhibaato fara badan